villa Soomaaliya oo qorshe ka dhana lafta gareen diyaarisay shirkii golaha watashiga oo hilfaha la isugu qaaday Axmedoobe oo shuruudo adag la yimid iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee dalka ayaan saaxiibayaal warkan ku falanqeyn doonaa qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku eegi doonaa warkan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhameystiran aynu ku horeynaa villa Soomaaliya ayaa diyaarisay qorshe ka dhana lafta gareen xilli ay u muuqato in difaac siyaasadeed lagu kala jiro hase yeeshee mar walba ajende gaar ah ayaa u degsan madaxweyne xasan iyo kooxdiisa xogo hoose oo uu helayo dhanka wararka waxa ay sheegayaan in madaxtooyada Soomaaliya ay diyaarisay qorshe siyaasadeed oo ka dhana hogaamiyaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis lafta gareen oo isagu dhawaan soo gaaray Muqdisho qaybna ka ah shirka golaha watashiga qaran ee ka socda magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya lafta gareen oo ciidamo badan wata ay caasimadda yimid hase yeeshee waxaa jira qorshooyin siyaasadeed oo la sheegay in madaxweynaha lagu fashilinayo kulaabashadiisa Baydhabo iyo in ciidamada uu wato kulligood xamar lagu reebo villada ayaa wada qorshe qaristurnimo siyaasadeed lagu tilmaamay kaasoo lagu hakinayo safarkiisa lafta gareen ee Baydhabo iyo inuusan ka bixi karin Muqdisho ciidamadii gaarka ahaa ee watay madaxweynaha ayaa loo diiday inay gudaha u galaan madaxtooyada waxaana gabi ahaantood lagu reebay banaanka villada taasoo ka dhigan in lafta gareen wax walba lagu sameyn karo inta uu ku jiro madaxtooyada Soomaaliya madaxweyne lafta gareen in ballankii looga baxo lana xiro qorshe ah ayaa xilligan socda masaarida ayaa ku qancisay dowladda madaxweyne xasan lafta gareen wuxuu galay qalad istiraatiiji ah ciidan kasta oo qofku wato meelo aan lala gelin ayaa jira sida madaxtooyada oo kale lafta waa ammaan intuu gudaha garoonka joogo laakiin mar haddii uu villada galo amnigiisu halis weyn ayuu ku jira ayuu soo qoray Cali Yare Cali oo isagu si weyn u falanqeynayay hogaamiyaha koonfur galbeed iyo ciidamada uu soo gashtay Muqdisho kuwaas oo dad badan ay si kala duwan u fasirteen hase yeeshee lagu tilmaamay in uu yimaado Muqdisho qarsoonnimo siyaasadeed iyo qorshe uusan si weyn uga baaraan degin waxaa hadda socda qorshe culus oo madaxtooyada ay ku doonayso in hogaamiyahan lagu shirqoolo inkastoo shirqoolka villada la sheegay in uu dil ku jirin hase yeeshee uu yahay kaliya xanibaad safar iyo cunaqabatayn gudaha ah kaasoo madaxweynaha loo ogolaan doonin sida la sheegay inuu dib ugu laabto magaalada Baydhabo ee caasimadda koonfur galbeed Soomaaliya xaaladda ayaa mar kale isbedelaysa haddii villadu ay ku dhaqaaqdo tallaabooyinka Masar ay soo gudbinayso ee ah in lafta gareen xabsi guri laga dhigo waxaa ka dhalan doonta ficillo waaweyn sida ay aaminsan yihiin dadka reer koonfur galbeed oo lafta gareen maanta uu yahay hogaamiye ay ku daysadaan si weyn ay u taageereen markii soo shacbaxday qadiyadda villada iyo sidoo kale koonfur galbeed hadda waxaa looga digay madaxweyne xasan iyo kooxdiisa inaysan ku degdegin in dhibaatooyin siyaasadeed xilligan ay u geystaan hogaamiyaha maamulkaasi wadahadallo ay ridaha u xiran yihiin ayaa u bilowday madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo hogaamiyaha koonfur galbeed Cabdicasiis lafta gareen ila xogogaala waxa ay noo xaqiijiyeen in kulankan uu daba socdo wadaxaajoodidii labada daraf la isugu soo dhaweynayay ee dhowr jeer oo kala duwan ka dhacay magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka ee koonfur galbeed madaxweyne lafta gareen ayaa Muqdisho la yimid ciidamo hubeysan taasoo banaanka keentay heer kala shakiga labada mas'uul iyo in sinaba aysan isugu soo dhawaan karin maadaama cabsi weyn ay ka taagan tahay gudaha dalkan Soomaaliya Soomaali heshiis ah dunidana la heshiis ah boodkii weynaa ee madaxweyne xasan filimkiisii uga dhigay kaartadii lagu geli lahaa waxay maraysaa intaanan aduunba la isla gaarin in madaxweyne lafta gareen oo diyaarad ciidan ah wata xamar ka dego isagoo kalsooni darro iyo isku aamin la'aan ka qaba dowladda hadda joogta iyo madaxdeedaba adduunkii aynu nidhi waa la heshiinaynaana Suudaan oo albaabkay nagu leedahay abaalkay nagu leedahay aynu iloweynin aynu ognahay ba fuduusheen kana baxsan la iyadoo teediiba u yaaban lax dhukan col iyo abaar moog ayaa hore loo yiri Maxamuud Afdhuub oo isagu si weyn uga hadlay xaaladda siyaasadeed ee xilligan dalku ku sugan yahay iyo tallaabooyinka uu qaadayo hogaamiyaha dalkan Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo lagu tilmaamay inay yihiin kuwa qarsoonnimo siyaasadeed ah balse aan ka shaqeynaynin isku soo dhawaansho ummadda Soomaaliyeed si dalkan dowladnimadiisa ay u xoogeysato dhinaca kale shirkii golaha watashiga qaran ayaa hilfaha la isugu laabay xilli si weyn doodo laga soo bandhigay waxyaabaha la qaban karo suuragalna ay tahay in xilligan ay dhacaan
hogaamiyaasha koonfur galbeed Jubbaland iyo sidoo kale Galmudug ayaa la xaqiijiyay in ay si weyn uga doodeen in ay suuragal ay tahay in shirka laga soo saaro qodobo dowladda lagu taageerayo iyo muddo kororsiyo hor leh hase yeeshee maamuladu waa ay ka diideen dood dheer iyo waqti badan oo la qaatay kadib waxaa la sheegay in dib loo ballamay maantana qorshuhu ahaa in shirka la soo xiro aysan ku heshiin madaxda maalin kalena la qabsaday madaxweyne xasan sheekh ayaa la xaqiijiyay inuu madaxda dowlad goboleedyada koonfurta dalka ee muddo dhaafka ah siin doono 1 sano oo muddo kororsi cusub ah taas oo ka dhigan in madaxda dowlad goboleedyada ay gaari doonaan dhamaadka 2025 madaxweynaha ayaa ka doonaya dowlad goboleedyada koonfurta jooga in ay la ogolaadaan magacaabidda guddiga doorashooyinka madaxa bannaan baarlamaankana kala shaqeeyaan inuu dib u furmo oo ay ka doodaan ajadiyaashaasi dhammaan waa arrimaha siyaasadeed ee hortibinta u leh madaxweyne xasan iyo dowladdiisa hase yeeshee maanta aan lagu heshiinin shirkii golaha watashiga qaran madaxweyne xasan iyo laftagareen ayaa hadda leh kulan gaara kadib toddobaadyo ay dhinacyadan kala shakisanaayeen kaas oo ka hor shirka madasha uu codsaday madaxweyne xasan madaxweynayaasha maamulada koonfurta ayaa ku sugan muqdisho iyagoo cutubka doorashada uu yahay waxa ugu weyn ee laga hadlayo hase yeeshee ay ka meermeerayso villada in si toosa loo wajaho ajandayaasha siyaasadeed ee hortubinta u leh qarankan Soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo maamuladu xaalkoodu uu adag yahay waxaana ay u muuqataa in shirkii golaha watashiga qaran uu ku soo dhamaanayo fashil iyo jigabax siyaasadeed iyo in wax heshiis aan laga gaarin dhammaan arrimaha la isku hayo taasoo villada lagu tilmaamay in ay qaadayso wado aan munaasab ahayn xilligan dalkana gelin karta marxalad gacan ka hadal siyaasadeed inuu dhaco waxaana xasan sheekh iyo kooxdiisa si weyn loogu eedeynayaa inay iyagu ka shaqaynayaan faragelin iyo khilaafaad horle axmed madoobe ayaa shuruudo adag la yimid waxaana isagu si cad u sheegay haddii dowladda dhexe uu la shaqaynayo muddo kororsi uu qaadanayo qasab ay tahay in maamulkiisu aysan cag soo dhigin mucaarad maadaama lagu kicin karo fowdo iyo qas waxaana uu sidoo kale sheegay in dowladda dhexe aysan qaadi karin tallaabooyin kale oo ka baxsan wixii lagu heshiiyey haddii aan sidooda loo fulneynin axmed madoobe ayaa ka shaki qaba in haddii uu saxiixo muddo kororsiga villadu beeca uga bixi karto oo dhinaca kale looga wareegan karo waxaana uu sheegay in Kismaayo iyo guud ahaan Jubbaland aysan iman karin xubnaha mucaaradka ah qasabna ay tahay in dib ay u laabtaan haddii kale uu sheegay inuu isaga ismaamuli doono oo dowladda dhexe marna uusan aqbali doonin maamulka guddiga doorashooyinka iyo dhismahooda ayaa si weyn lisugu hayaa waxaana xasan iyo kooxdiisu ay soo jeediyeen in magacaabidda guddiga doorashooyinka ay ka imaanayso wasaaradda arrimaha gudaha laga bilaabo doorashooyinka heer federaal ilaa heer qaran ayaa la sheegay in guddigan ay ka shaqaynayaan hase yeeshee kala diridda guddiga doorashooyinka dowlad goboleedyada waa qodob weli taagan doodiisuna ay isku hayaan mucaaradka iyo sidoo kale maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe taasoo aan loogeyn sida looga heshiin doono saaxiibayaal waa naga intaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda waddanka nabadgelyo